saxaafaduna su'aalo badan bay ka weydiiyeen labadaasi xubnood ee nala joogay Twitterka xilli aanay doodu gabagaboobin ayaa waxaa gudaha u soo galay xarunta MMTV ee magaalada Hargeysa ciidamo hubeysan oo markaasi arrintaasi ay hogaaminayso markiiba waxay joojiyeen doodii goobtii ay ka socotay sidoo kale waxa ay xidheen mas'uuliyiintii iyo shaqaalihii meesha joogay gudoomiyihii telefishinka Maxamed Cabdi Sheekh iyo sidoo kale Maxamed Cabdi Cabdilaahi Andar oo wariye ah Cabdinaasir oo farsamo yaqaan ah oo shaqada ku jiray dhammaantoodba iyadoo si xun loola dhaqmay ayaa meeshaas marka ciidanka markay soo galayeen ma haysteen warqad ruqsad ah ama u ogolaanaya in ay goobta soo galaan ama ay mas'uuliyiintan xiraan mase sheegeen waxa ay ku eedeynayaan waana ka xunnahay cilad xagga farsamada ah in aan wareysigaasi idin dhammaystiri weyno